بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحاسku waa nooc ka mid ah xayawaanada halista badan leh isla markaana khatar gelin kara nafta qofka. Waxa uu yaxaasku waxyeelin karaa dad qaabab kala duwan isagoo mararka qaar halis ku soo gaarsiin kara dadka biyaha dhexdooda, marar kalena ku waxyeelin kara bariga. maadaama uu yaxaasku ka mid yahay xayawaanada baribiyoodka ah, micnaha waxa uu ku noolaan karaa bariga iyo biyahaba. isku soo wada duubo haddii aynu u gudubno barnaamijkeenan ayaa waxaaynu kaga warrami doonaa dhacdo la yaab leh isla markaana naxdinteeda leh. haddaba ka hor inta aynan gudagelin barnaamijka, fadlan like saar muuqaalka daawade, subscribe na saar channelka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada cusub oo aanu idiin soo gudbin doono. Demetria Nabil waa gabadha xaaska u ah ninka la yiraahdo Mubarak Botambuze. lamaanihani waxay ku noolaayeen dalka Uganda iyagoo u dhawaa amaba ag deganaa haro weyn oo biyo ka buuxaan, taasoo magaceeda loo yaqaano Kayoga. maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday inuu yaxaas soo weeraray xaaskii Botambuze iyadoo oo biyo ka qaadanaysa haradii, waxaanay waqtigaas la joogtay oo ku dhex jirtay dumar kale. waxaa la sheegay inuu yaxaaskani qaatay oo uu cunay gabadhan guud ahaanba. arrinta sii naxdinta badan lehina waxay ahayd in ay gabadhani uur lahayd. haddaba culayska yaxaaskan soo weeraray gabadhan ayaa waxaa lagu qiyaasaa 600 kilogram isagoo dhererkiisuna ka dheera 4 mitir. Botambuze waxa uu ahaa nin kalluumayste ah. mar uu ka warramay masiibada ku dhacday gabadhiisana waxa uu yidhi, yaxaaskani waxa uu cunay gabadhaydii guud ahaanba, kamanuu reebin in yarna, maxaa yeelay lama arag in yar oo ka mid ah jirkeedii iyo maryaheediiba. maan garanayn waqtigaas waxaan u qaban karo xaaskaygii iyo ilmahaygii yaraa ee dhalan. waxaanay ahayd xilligaasi dhammaadkii noloshaydoo dhan, waana khasaaray gebi ahaanba. ereyadaasi waxay ahaayeen ereyadii Botambuze Mubarak. bil kadib ayaa waxa uu yimid Botambuze rag ay saaxiibo ahaayeen, waxaanay ugu baaqeen in ay arkeen yaxaaskii cunay gabadhiisii. intaas kadib Botambuze iyo raggii ay saaxiibada ahaayeen waxay isku dayeen in ay waxyeeleeyaan yaxaaska cunay gabadhii Botambuze. inkasta oo uu ahaa Botambuze 50 jir, ragga ay saaxiibada yihiinna aanay ka dhicin da'aha ayaa waxa ay ku guul daraysteen dadaalkoodii ahaa in ay dhibaateeyaan yaxaaskii. waa kan hadalkii Botambuze mar kale isagoo ka warramay sida ay ula dagaalameen yaxaaskii. waxa uu ahaa bahal weyn oo quwad leh, waxaanan isku dayay inaanu la dagaalanno annagoo ku tuurayna dhagaxaan iyo qoryo xaabo ah, laakiin waxba waanu ka tari weynay. muddo yar kadib waxa uu u socdaalay Botambuze oo uu la kulmay tumaalayaashii deegaankiisa joogay, waxaanu uga warramay dhacdadii ku dhacday isagoo ka dalbaday in ay u sameeyaan waran adag oo si fiican u afaysan isla markaana ka takhalusi kara yaxaaskaas. maxaa yeelay Botambuze waxa uu doonayay in uu ka aargoosto yaxaaska cunay gabadhiisii een mid ka reebin. kadib markii uu soo noqday Botambuze ayaa waxa uu si toos ah u abaaray haradii uu yaxaasku ku noolaa. fallaadh abaarkii ugu horreysay ee uu qac ku siiyeyna waxa uu damcay in uu gudagalo aargoosigiisii, balse waxa aad ugu calaacalay saaxiibadiisii iyagoo doonaya inay ka baajiyaan go'aankan khatartiisa wata ee uu qaatay Botambuze. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa, saaxiib ka joog arrinkan oo ha isku dayin inaad la dagaalanto yaxaaska intan leh, sababtoo ah wuu weyn yahay, waxna kama qaadi karo warankan yar ee sidataa. iyagoo u sii raaciyay hadalkoodii inuu yaxaaskani khatar gelin karo naftiisa uuna ka yeeli karo sidii uu ka yeelay xaaskiisii. waxa la yidhi, nin meel u caadahay meeli ka madoobe. waxa uu Botambuze ku adkaystay go'aankiisii, waxaanu isku dayay inuu weeraro yaxaaskii. haddaba maxaa xigay? Botambuze waxa uu xadhig ku xidhay warankii uu damacsanaa inuu ku dilo yaxaaska, waxaana uu galay dagaalkii. waxa uu Botambuze ku tuuray yaxaaskii warankii uu sitay, isagoo dhinac kale eegtay si uu xadhiga ugu soo jiido waranka, isla markaana waranku u kala jeexo hilibka yaxaaska. markii u horreysay ee uu ku tuuray waxa uu yaxaaskii isku dayay inuu cuno Botambuze, balse taasi may dhicin oo waxa uu Botambuze isla markiiba ku soo jiiday xadhigii. waxa taas u raaca
inay saaxiibadii caawiyeen oo ay dhagaxaan kaga soo tuurayeen yaxaaska xaggiisa dambe, taas oo yaxaaska dhibaato ku noqotay. Botambuuse haddana waxa uu kaga tuuray warankii xagal kale isaga oo ku soo jiiday, waxaanu warankii kala jeexay hilibkii yaxaaska. Halgan dheer kadib waxa uu yaxaaskii ku nafbeelay goobtii isagoo 1 saac iyo badh kadib dhintay. Isku soo wada duubo waxa uu 50 jirkan geesiga ahi ku guuleystay in uu ka takhalusto yaxaaskii dilay gabadhiisii isagoo sameeyay aargoosi halyeynimo leh. Waxa sidoo kale aad ugu mahadnaqay bulshadiisii uu ku dhex noolaa, iyagoo u aqoonsaday xilligaas halyeey ku dhex nool deegaankooda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: aad baad ugu mahadsantahay mudane Botambuuse, shaqada fiican eed qabatay. Haradaas biyo ayaanu ka soo qaadanaa, waxaana hubaal ah inuu yaxaasku qaadan lahaa qof kale haddii aanad disheen.